bilaabo horta wad nagu baashashay maanta kowdhe yaa wareysigaa in wareysigaa inaan nagu kibiso jees nagu dul wadana wala arkana kowdhe yaa dee aqligaaga dhiibsatay maayir waad saxanta inaad maanta nagu dul jeejeesto weliba anagoo waxay ku weydiin inaad nagu dul jeejeesto waa xaq waxaan anigu mutaysnay haddaan na shicibka degad saddexa degme daantin waxaan ku leeyahay maayir horta waxaan ku haysaa waa qaladba maanta laga bilaabo anaga nagu dul jeejeesteen rabtaaba sidii ciyaalka yaro jeejees bal su'aal baa la weydiinaya bal dib iskugu firsasoo hadlayso waxaan leeyahay anigu xagaan kala hadlay baaq dheer baad gaaban u jeedinaya dhammaan bujoweynta degta lixlaata ka tuun qacal libaax koodbuur iyo qacma dheere inaad fadhiga ka kacdaan ama maayirka aan iska dayno dad sidoo doona magaalada ka samaysto wuxuu doonaa ka sameeyo ama ay wixii aanu kaano hadal u wadi mayno maalin walba qayli mayno baaq gaabay baaq dheer maalin ba soo jeedi mayno kowdhe ninkan waa kiray hadal cad siduu hadlay wada arkaysaan fadhiga aynu ka kacno cashuurtiina haddaad bixinaysaana herde dee bixiya haddii kale nin walba cashuurtaada iska hayso wax cashuuraa bixin kowdhe waa inaad soo baxdaan balaabax degdega waa inaad isku soo baxdaan baan anu xaggan uga baaqaya midda kale waxaan ku darsanaya waxayaan dhammaan anaga qaybtan nimanka xildhibaanada anaga qaybta dacaamka noo fadhiya horta intan maarmoodo aan ku meersayno kuwa qaybta dacaamka noo fadhiya nin walba aan garanaa reerkiisa xaggu degay gurigiisa xaafadeena aan ka saarno aynu qaraacno waxaan ku yidhi markaa 10 lama u dhigno waa inaan isku soo baxno haddaad wax doonaysaan waa haddii kale dee annaganaan naxay jirnaa idinkuna guryaha noo fadhino qacmiyo jib wax ku gooyaane soo baxo waxayna aanu dagaalano inu jahadno intaas oo maayir waxba sidii islaamaha iyo dumarka marwooyinka xafladaha qabsanayay hoteelada ku dhumane barnaamijka u soo bax barnaamijkan kugu sugeynaa walaa mid aad soo laaluushtay oo su'aal adigu soo qorto tii su'aalaha ay weydiiyaan naga ka qabanayn walaa mid kale lacag siisay baan meel ku marinayn isla xisaabtan kuma yar wax ka dhaxeeyo dadka in lagu la xisaabtama haday noqotay oo tiraad dadna way nacbi dadna way jecel anagu kuma nacbin laakiin la xisaabtan baan kugu karlaan wala ku kalaan xaafada dhaliirta xaafadaan nahay annaga matala dhixilaata ka joon annaga matala 100 ka xaafada annaga matala annaga dibadda ku taagan dadkan gudaha ku xareysatay ma matalaan xaafada iyo degmooyinkan annagu cabashadeedu aanu ka wadno cidina lama matali karto annaga matala annaga wax ku weydiinana annaga ku baahan annaga noo kaalay annaga nala hadal nala xisaabtan na soo horfadhaysa annaga taa wax islaayso haddii kale taa lacag soo siisay xaafadeedana kuma keenayaan meel kale kuma keeni karaan degma aan joognana ma iman kartid annaga kule maayir waxba ha ku gabanin kowdhe waxaan la hadlayaa nimanka xildhibaanada ay lacagta ka soo qaata yaa doonaya 100 ka intay lacag keenaan inay yiraahdaan lacagta kaaga cuna lacagta iska dhamaynin maayir cidina walaa ku sooltay kala yiraahdaan xaafada iman karin oo isagu u dhashay walaa ku sii jaamac leeyaan xaafada iman karin iyagaaba xaafada cashuur lagaga dhax qaadaa cashuurtaada anaga weydiinayso iyagaanu kaaga soo qaadaynaa
reerkii shorta maanta waxaan maaymo ku haysanaa waa khaladba waxaan laalnaa kuwan degmooyinka caban ee kuwa laga soo doortay xildhibaanada tuugtu dhashay ee maarmooga goolida u meelaya ee meelaha lagu qaylayo fadhiya waa in dadkeena qanciya lacag waa la helaa lacag waa la waayaa ma $100 bay ilaahay ku gaashay ninka ka dhayn ku raxlaynaysa waa $100 baad ku raxlaynaysa war maanta wajigu maanta maaha bari ka maalin baad madaxweyne isku sharaxaysa bari ka maalin baad xildhibaan isku sharaxaysa wajigu maanta ma anigu maarmooga waxaan ku haysanaa waa khaladba ma uu naga raali noqo laakiin anagu waxaan laalnaa xildhibaanadan qaybta dacaamka la geliyay guri kasto ku jira gijada عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ساكا يرتي وبري waxaan nimi meesho maayirku kula balamay sida noocan arkayna dadkii uu isagu diyaarsaday inuu meesha kula kulmay kama cabanay wariyaale waxa ka cabanay shacab aadna u xarakeynaya maayirku maanta waxaan moodaa inuu libaaxiyayba maayirku sidoo hal nin dad ka cabanay in xoolo madad ku maqan yihiinba umeeka taasna waa inuu inaga arkay waxa ka kala hadlaya maayirka maanta ma haystee wixii deegaanada laga soo doortay wanaader wad ceebisatid wixii la idinku sheegay inaad tihiin soo cad garateen maaha moogana mid baa la yahay isha naga aragtay waxa la yiraahdo qofta isha laga arkaa lagu tumaa waa isha naga aragtay laakiin moogo way dhici doontaa adoo afkaaga isku casileen ku wallahi way dhici doontaa adoo afkaaga isku casileen mid kalena waxaan leeyahay dadkan su'aalaha isaga weydiinay isagu jeebka ku haysto oo cadda wixii idinku ma yar adiguna ood go'aansatay ku adkaysoonba horta waan hadlay looma hadloon hadalna dad iga horeeyay baa yiri anu hal kelmad uma ka dhawaajinaya halka kelmadi waxay tahay horta waxa la yiri waranka ninka kugu mudo iyo ninka kugu lilijiya ka xun run ahaantii horta moogo waxa loo qabsado waa qalad moogana uu ka dhawaajiyo wuxuu dhaani golay soo doortay golana waxa igu matala dad aan inagu dooranay walow isagu ka mid yahay 26 golo kumay dooranay dad baa ku doortay moogo wuxuu ballan qaaday magaalo caasimad cagaaran moogati hadii laga heli waayay horta moogo inagu waxa la hadalnaa waa qalad waxay u baahanay nimankan inaga moogo dabadiisa ku jira eedaha dabadiisa ka soo hadlaya eedaha dabadiisa kolba meel yar loo istaagayo nimankaas in la garaaco in la tumo in guryahooda hortooda loo istaago oo iyaga wax laga qabto kuwii maanta loo inoo hadli lahaa waa iyaga saddex degmaadeen iyo inta cabanaysaba kuwii maanta dhaliili lahaa waa inaga waa iyaga kuwii maanta erey xun iyo ku sanba oran lahaa waa isaga wani waxaan idii sheegayaa nimankaasow waa nimankaa meesha ku jiro waa ninkaa idinkaa nooga dhowe waa ninkaa la hadla idinkaa idigu waajiba idinkaa idigu xaqa haddii kale maayir moogo inta lala waayey idinkaa la idila helayaa wallahi idinkaa idila helayaa